السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhamaanteen bal ka waran maantay wax ka yar 10 daqiiqo hadii aan kugu sheego fursad ganacsi oo noloshaada bedeli karta oo magaalada Muqdisho oo 4 milyan oo qof oo dhalinyaro u badan ay ku nool yihiin aan ka jirin. taasi waa sababta aan ugu talagalnay inaan baabiino isku ekaanshaha ganacsiga Soomaalida si bulshadu ay u hesho ganacsi gaar ah oo ay ka hesho dhadhankii iyo sidoo kale faa'iidadii qofka ganacsadaha uu kaga baahnaa. maanta waxaan haynaa fursad ganacsi oo ka banaan suuqyada magaalada Muqdisho sidaan wada ognahaba magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya si xawli ay u kordhayaan waxaana baahi weyn loo qabaa noocyada cuntooyinka fudud ee nafaqada leh ee waqti kooban lagu diyaari karo sidoo kalena waafaqsan tayada lagu talagalay. sidoo kale magaalada Muqdisho dadku waxay u guurayaan cuntooyinka caafimaadka leh sida daraadeed waxay ka tagayaan waxyaabo badan oo qofka uu hore u cuni jiray sida marka maqaayad tagtay maqaayada waxay sameynayaan 20 nooc oo cunto buur bariis wax kasta ayaad ka helaysaa shaah kafe cunto wadani marka sidaas ay tahay in maqaayadaas wax kasta laga helo waxay lumisay tayadii dad badan ay wax kaga cuni lahaayeen. maqaayadaha qaarkoodna way haawanayaan sababtu u haawanayaan waxay tahay inay wax kasta sameeyaan. magaalada Muqdisho oo caasimad 4 milyan oo qof ay ku nooshahay waxay u guuraysaa in adeegyada ganacsiga ee gaarka ah sida gaarka ah shay ugu takhasusay ay dadku u aadaan. baaritaano ku sameeyay magaalada Muqdisho waxaan soo ogaanay shawarmada Muqdisho laga cunayo maqaayadaha lagu sameeyay maqaayadaha adeegyada kala qabta ay sameeyaan inaysan lahayn tayada lagu talagalay. maadaama tayada shawarmada la waayay waxaa hoos u dhacday fursadii dad badan ay shawarmada ku cuni lahaayeen. toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho nin saaxiibkii oo dalalka Carabta ka yimid ayaan maqaayad wada fadhiisanay kadibna shawarma ay u dalbaday. xaqiiqatan shawarmadii meesha ay uga kacay asagoo aan cunin lacagtan uu baxshay. habeenkii saddexaad ayaa meel kala tagnay shawarma ayuu dalbaday shawarmadii haddana asagoo cunin buu barta uga kacay. kaligiis maahan 100 qof ayaan arkay adduunyada shawarmada laga cuno iyo tan Soomaaliya laga cuno waxba iskama qosayaan. sida daraadeed magaalada Muqdisho markaan baaritaano ku sameeyay waxay ogaanay in iska jirin shawarma house ama meel shawarmada u gaar ah oo shawarma bis lagu sameeyo. dadku waxa lagu wareeriyay waxa loo chicken iyo chips iyo waxyaabo noocaas oo kala ah ma jirto meel la shawarma house. shawarmadu sidaan ognahaba waa cuntooyinka doorashada koobaad u noqon kara dhalinyarada shaqaysa ardayda iyo qoysaska waa hadii tayada lagu talagalay ee ugu fiican lagu sameeyo. hadaba waa maxay sababta lagu baahan yahay maqaayad u gaar ah shawarmada ama shawarma house ama meel shawarmada bis u gaar ah. maqaayadaha Soomaaliyeed waa sidaan hore u sheegay isku dhex jirkaas tirada badan ay sameeyaan taas waa dhibaato. laakiin markii shawarmada meel gaar ah kaliya loo sameeyo oo la yiraahdo maqaayadda shawarmada ayaa lagu cunaa waxa qofku heli karaa dhowr nooc oo shawarma ilaa iyo 18 nooc oo shawarma ayaa jirta. laakiin dadka Soomaaliyeed hadda waxay cunaan shawarma chicken iyo fish bas cunaan iyo hilib wax kale ma cunaan. laakiin adduunka waxa ka jirta 18 nooc. qofkan wuxuu keenayaa noocyada kala duwan ee shawarmada oo qofka wuxuu helayaa dooqa uu rabo oo shawarma ay cuni karaan. maadaama shaqaaluhu hal shay oo kali ay diyaarinayaan waxa sare u kacaya tayada waxa la diyaarinayo sidoo kale waxa sare u kacaya nadaafadda iyo dhadhanka. qarashka shawarmada ay ku baxayso mid aad u yar oo waxa laga yaabaa qofka haduusan guri weyn kareysa ama maqaayad weyn soo furan oo meel yar oo laamiga u dhow oo chance ku helo oo diyaarsado in lacag yar ay ku baxdo. waana sababta aan ugu talagalay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ganacsigan ka faa'iideystaan. maqaayad wuxuu u baahan tahay soo jiidasho waa in qofku marka hore intuu sameyn uu ka fikiraa dhadhanka tayada iyo noocyada uu sameynayo inuu heli karo shaqaalo shaqadan u qabta. Soomaaliya wuxuu u baahan tahay noocyada shawarmada ee laga cuno khaliijka in loo soo guuriyo oo magaalada Muqdisho caasimada la keeno sababtoo ah dadka ganacsatada waaweyn ummadoo dhan ayaa magaaladan ku nool waxayna u baahan tahay wax fiican oo tayo leh oo caafimaad leh. sidaan ognahaba Soomaaliya kama jirto shawarmada la yiraahdo saajka ama shawarma saaj dad badan ayaa raadi doona hadii shawarmada la yiraahdo saajka Soomaaliya laga sameeyana dad badan ayaa ku soo daadan doona. sidoo kale shawarmada la rabo in la sameeyo waa sayruuq shawarmada la dhaho waa xabad aad u weyn oo rooti oo dhir la sidoo kale waa cuntooyinka qofka uu ka dhergi karo. marka magaalada Muqdisho u baahan tahay shawarmooyinka saruuqa saajka shawarmada hilibka looda laga sameeyo sisinta la yiraahdo ama tihaaniga la yiraahdo dalalka bariga dhexe aadka loogu cuno
sida caadiga ah shawarmooyinkii dadka Soomaaliyeed ay cuni jireen ama chicken ama hilib iyo wixii dhammaan isku dardar aduu noocyada Soomaalida hadda marna inaan ka hadalno laakiin saddexaas nooc oo shawarmada ah magaalada Muqdisho kama jiraan sidoo kalena inta nooc ay ka jirta hadda shawarma chicken shawarma fish shawarma malaha tayada lagu talagalay ayaduna waxay u baahan tahay in la tayeeyo haddii qofku uu dadaali karo oo soo koobiyay karo uu keeni karo shawarmooyinka caalamiga ah ee la yiraahdo doner kebab oo Turkiga iyo sidoo kale Greega iyo Qobrus aad looga isticmaalo ayaduna waa si fiicnaan lahayd shawarmada iyo balaatarka oo baradhada shiilan laftigeedu haddii qofku uu ku dadaali karo aad buu fiicnaan lahayd marka waxa soo qiimeynay qofku muxuu u baahan yahay runtii mashiinada shawarmada waa kuwa aad u yar yar qiimo badan ma joogaan qofku wuxuu u baahan yahay mashiinka shawarmada ee yar ama loo yaqaano bannerka waa midka hilibka lagu sameeyo wuxuu qaadi karaa runtii 10 kilo 20 kilo waxyaabo noocaas ah wuxuu ku shaqeeyaa gaaska caadiga ah ee Soomaalidu hadda haysato mashiinka labaad waxa la yiraahdaa commercial contract grill kan waxa loo isticmaalaa in roodhida maaragtay lagu kulleeyo ama rootiga in lagu kulleeyo midka saddexaad qofku u baahan yahay waa electric shawarma knife ama qalabka yar ee gacanta lagu qabto ee hilibka lagu jarjaray si siman si xawaaruhu uu aad u sareeyo uu gogooyo haddii kalena qofku uu ka maarmi karaa mashiinadan markaan ogaanay magaalada Muqdisho waxay ka joogaan lacag dhan $250 waa mashiinka koowaad oo bannerka wuxuu ka joogaa $250 mashiinka labaad ee contract grillka wuxuu ka joogaa $120 talaagada yar ee freezerka ayaduna waa $200 ilaa $300 miiska birta ah ee sterilka waa $100 ilaa $150 qorxunta meesha ay ku kooska markaan qiimeynay hadii qofku uu guri weyn kireysan oo meel yar oo laami oo jaaris ku $600 ayaa ku baxaysa marka guud ahaan baad la isku dar wax ku baxay qofkan waxa dhigi karnaa waa $1500 ilaa $2000 waa $2000 ilaa $1500 oo ah profitable ganacsi la hubo in dadka magaalada Muqdisho ay ku soo xoomayaan sidoo kalena saf loo gal hadii qofku maqaalad weyn oo furo karana waa ka si fiican tahay waxa ka fiican qofku inuu $200 ku bilaabo meel yar intuu raasado mashiinada keensado sidoo kalena shaqaalaha aad u tababaro sidoo kale waa inaad ogaataan magaalada Muqdisho waxa aad ugu soo kordhay deliveryga maadaama delivery uu badan yahay dad badani hadda isku hawli doonaan inay maqaayadaha fadhiistaan ayuu guryahooda jooga ay adeega soo dalba doonaan magaalada Muqdisho shawarmada qiimaheedu waxa ku jooga $2 ilaa $3 waana lacag aad u badan marka tan waxa laga yaabaa tayadii iyo lacagtiiba inay sare u kacaan waana sababta qof kasta uu u baahan yahay inuu lacagtiisa ka bixiyo shay u qalma arintan sababta aan ganacsiga shawarmada ee heerkoodu aad u yar yahay ee raasmaalka yar ama lacagta yar lagu bilaabi karo aan dadweynaha ugu soo bandhigana waxa ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan sidoo kalena shawarma house magaalada Muqdisho laga hawlgeliyo oo lagu dadaalo tayadana laga shaqeysiyo waan ognahay dad badan ayaa markii qof sameeyo kuwa kale ayaa ka daba koobiyi doona laakiin mar walba adiga hadii lagu barto dhadhanka dadaalkaaga iyo sidoo kale goobta ugu haboon sidoo kale qofku inuu ka fikiraa goobta ka furaa inay noqoto meesha ugu haboon uguna fiican uguna toosan customer ama macaamiil badan laga heli karo maantana qofku uma baahna xataa inuu meel dabka iyo meelahaas u degay wuxuu u baahan yahay inuu baraha bulshada xoog saaro si deliveryga lagaga soo dalbado haddii aad tayo la timaadid qof kasta asoo gurigiisa oo ku yaala suuqa xoolaha adoo dab ku yaala ayuu ka soo dalban doonaa wamaasantihiin fadlan nagu soo biira haddii aad nagu cusub tihiin fursaddan ganacsi inaad ka faa'iidaystaan waa rajeynaynaa haddii aad qabtid fikir ama dood arrintaas ku saabsan fadlan comment nagu rab maasanid